الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوينه ومال كستد جوجتين سومال وينه وسلامينا سلام كبعدي وحانين كعدسنينا إن تقبلك تابتين شير كومنت سبسكرايب إن فيسبوك فلو إن تدرسوا الهدين أنت أسبوعكم هسنتين دمانتين أنت هرن نوصل الهدين وما سنت هاي بقول إذا كان واحد يكون هناي تاسو كده أنك سو قد بمرتاس maanta meeshaan waxaan usoo fadhiistay arrimo yar oo musalsala socday waa tii aan doorasho qabanay ka bacdi haddana waa tii shalay maxkamad la geeyey oo la dhahayay doorashadii wax isdabamari waxaa jiray tii aan aad maanta lasoo fadhiistay maxkamadda sharafta leh oo maanta waxay ku dhawaaqi rabtaa marka natiijadii kama dambaystaheed oo dadweynaha sharafta leh meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dadka ku dhaqan dhinaca lafey constituency ku dhaqan ayay rabtaa marka doorashadii maxaa ka qaldanayay maxaa ka saxsaxay maxaa isdabamaray maxaa jiray natiijada kama dambaysa maxay tahay ayaan meeshaan inkaga sheegaynaa dadweynow daawasho wacan iyo dhegihiina furo oona na dhegaysta oona marka wixii natiijo kasoo baxana ku qanca oona nagu raaca insha allahu marka natiijadu waxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم نتيجة waxay tahay meeshaan maanta markaan fiirinay meelaha kasta oo meel kasta oo la fiir constituency kamid ah kura ka soo dhacday marka dib loo xisaabay doorashadii ayada ahayd oo la falanqeeyay la fiiriyay maxaa qaldanay maxaa saxsanay markii la dhahay waxyaalo badan ay isdabamarsanaay meelo badan hataa doorashadeeda oo kuradii la xisaabina jirtay sanduuqooda la iska dhaafay taasna waxay ka dhacday waxyaalo oo badbadan yaryar oo dhinac kuwa doorashooyinka qabanayay ka dhacday marka hadda marka meeshaan waxaan idinkaga sheegi rabnaa hadduu ilaahay dhahaa maxkamadda sharafta leh waxay rabtaa inay idin falanqeyso doorashadana waxay ahayd inay noqoto xur iyo xalaal inay ahaataa la rabay tiina may dhicin xur iyo xalaashii may dhicin marka waxaan rabnaa hadda iyo kadib wixii oo ka qaldanaayo dambena inay qaldamin hadda wixii qaldanaayo insha allahu biidnillahi kariim in la saxa taasaad ka warqabayseen marka meeshaan aan rabaa inaan inkaga akriyo wixii natiijaha kasoo baxay daawasho wanaagsan doorashadii lafay constituency ka dhacday markii la fiiriyey wadayaasha dhan la wala fiiriyey meesha ugu badan oo ka dhacday isdabamarka si weyn looga dhaliilayay doorashada ka dhacday waxay ahayd gobolka Finno taasna markii oo la falanqeeyay dadkii dabagal lagu sameeyay sababta ay u dhacday la waa iskuurtlaan ay dhaheen cabsi ay ka imaaday marka maxkamadda sharafta leh meeshaan waxay ugu dhawaaqaysaa galabta doorashadii ka dhacday lafay constituency waxay dhaheen anakoona qof u aabiyeelaynin anakoona qof ka hiilinaynin anakoona qof u hiilinaynin marka meeshaan waxaa laga sheegayaa doorashadii ayada ahayd in laga soo qaaday wax kama jireen taasna marka ay noqonayso doorashadii in dib looga noqdo without fear and favor to anybody marka waxaan rabaa inaan ii sheego after adii 60 maalmood kadib doorasho in la qaban doono oo ku celis ah marka saas ogaadaysiin wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu